السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحر الجنة كمركز السود وهذا آدي هذا ومهتسنتهين جمعة ونكسن أيان إذن الله هي ملك استوت كل جمعة سبتمبر ما أنت تاريخ ذو وحيته هي أفرت بشا أفراد سنة كلبذا كن يشاني لباتنك ومعلم جمعة مقالك محربا إن كل وذاقو تيك توك maalinta beriya hoo shanta bisha inuu xirmaayo ahayd haddaba Trump ayaa maanta wareegta saxiixay oo muddada TikTok lagu iibsan karo uu ku kordhinayo arintaasi waan idinla wadaagayaa iyo sidoo kalena madaxweyne Trump oo ku dhawaaqay kaarkii uu ugu magac daray Gold Card oo 5 milyan lagu iibsanayay waa uu soo bandhigay sidoo uu egyahay maxaasa ku qoran sidoo kale waan idinla wadaagayaa canshuurihii Trump uu ku soo rogay wadamo fara badan oo caalamka ah oo hoos u dhac weyn shalay iyo maantaba laga dareemayo suuqyada dhinaca saamiyada Mareykanka lacaga fara badanna ay lumiyeen iyo sidoo kale China oo ka soo jawaabtayna waan idinla wadaagayaa ninkii gobolka Maryland ku noolaa ee wadanka El Salvador maamulka Trump uu masaafuriyay oo goordhow garsoore maxkamad federaal oo maamulka Trump ku amray in ninkaasi dib loogu soo celiyo Mareykanka arintaasina sidoo kale waan idinla wadaagayaa balse marka hore aan ku bilaabo cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii dheer fadlan WhatsApp number eber 9645459284 mahadsan ayaa maalmahan waxay soo weydiinayeen cilmiga TikTok waa la xiriir rabaa bal ka waran arintaasi maxaa ka jira TikTok markii Trump xilka uu la wareegay 75 maalmood ayuu ku kordhiyay waqtiga la iibsan karo TikTok hadii kale uu xirmayo caawa saqda dhexe ayuu ku ekaa oo 5 bisha ah marka Trump talaabo kale ayuu qaaday wareegta ayuu goordhow saxiixay uu ku kordhinayo muddada TikTok uu sii shaqeynayo isla markaana uu sii soconayo wada hadalka la doonayo in TikTok lagu iibsado haddaba wareegtada Trump uu goordhow saxiixay sidan ayay u qornayd maamulkiga waxa uu ka shaqeynayo waliba si aad uga shaqeynayay sidii uu badbaadin lahaa TikTok ayuu Trump yiri waxaan ka sameynay horumar aad u ballaaran wuxuu yiri heshiis laga gaaro iibka TikTok waxa uu u baahan yahay shaqo aad u fara badan iyo in la xaqiijiyo in dhammaanba ay saxiixaan dhinacyada laga maarmaanka ay tahay oo ogolaadaan waa Shiinaha ama shirkadda iskale ByteDance iyo Mareykanka iyo dawladda Shiinaha dhamaantoodba in la isla ogolaado wuxuu yiri waa sidaas darteed sababta hadda aan u saxiixayo wareegtadan oo aan ku kordhinayo muddada TikTok uu ku sii shaqeyn karo 75 maalmood marka 75 maalmood oo dheeri ah ayuu Trump ku kordhiyay oo bire ka bilaabanaysa marka waxay noqonaysaa bisha May ee 30keeda in haddana TikTok ilaa iyo May 30keeda uu sii shaqeynayo inta laga helayo cid iibsanaysa waxa la leeyahay shirkado fara badan Amazon Walmart iyo kooxo badan oo ganacsataha oo isku tagay ayaa dalabyo fara badan soo gudbiyay laakiin wali ma jiro dalab ay shirkadda ByteDance oo iskala TikTok ay aqbashay waxaan ognahay TikTok inuu tartan kula jiray Amazon iyo Walmart iyo dhamaanba shirkadahan online wax ku iibiyo marka Amazon waxay doonaysaa inay iibsato isla markaana ma u shaqeyn doono sidii uu shaqeyn jiray hadii ay iibsato Amazon marka waan arki doonaa hadii arintaasi ay suuragal noqoto iyo in kale marka wuxuu yiri waxaan rajaynayaa inaan si wanaagsan uga sii wada hadalno annaga iyo China sidii TikTok loo iibsan lahaa waan fahansanahay ayuu yiri in aysan ku faraxsanayn canshuurta aan ku soo rogay taasi oo ah laga maarmaan isla markaana cadaalad ah in la balance gareeyo ganacsiga u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba Shiinaha arintana waxa ay cadeyn u tahay in canshuurta aan ku soo rogay ay tool balaaran u tahay in awoodda ganacsiga isla markaana muhiimad ay u leedahay ammaanka qaranka marka waxa uu yiri ma rabno TikTok in uu qadka ka baxo ama daag uu noqdo madoobaado waxaan 19 January muddo 12 saacadood ay TikTok hawada uu ka maqnaa markaas kadib Trump markii 20 January xilka uu la wareegay oo wareegtada saxiixay oo 75 maalmood uu ku kordhiyay isla markaana TikTok uu dib u soo laabtay marka hadda caawa saqda dhexe oo 5 bisha ay noqonayso ayaa TikTok uu xirmi lahaa hadii Trump wareegtadan uusan maanta saxiix lahayn marka 75 maalmood oo kale oo dheeri ah ayuu hadda ku kordhiyay oo dhamaadka bisha May ee 30keeda ku eg sidaas darteed intaasi ayaa laga sii wada hadlayaa sidii loo iibsan lahaa TikTok marka
sharci la saxiixo Biden uu saxiixay intii uusan xilka ka degin ayaa jirta oo ah in TikTok laga xirayo Mareykanka ama shirkad Mareykana inay iibsato. Marka sharcigaasi waa la saxiixay, lagama laaban karo, laakiin waa in la helaa shirkad Mareykan oo iibsato, haddii kale TikTok gabi ahaanba waa u xirmaya. Marka Trump waxa uu leeyahay dadaalkaasi ayaan wadnaa sidii shirkad Mareykana ay TikTokana ay ku iibsan lahayd. marka wuxuu we look forward waan kasii wada shaqayn doonaa ayuu yiri sida aan TikTok anaga iyo China aan heshiis uga gaari lahayn arrintan, waana idinka mahad celinayaa dareenkiina la xiriira arrintan. Marka Trump sidaas ayuu leeyahay, ma doonaya ayuu leeyahay TikTok inuu xirmo 75 maalmood oo dheeri ayuu ku kordhiyay. Wuxuu yiri waxaan doonaynaa in TikTok uu sii shaqeeyo inta heshiiskan laga gaarayo oo shirkadda iskale ByteDance ay ka ogolaanayso in shirkad Mareykana ay uga iibiso. arrintaas waan arki doonaa halka ay ku dambayso. 75 maalmood oo dheeriya ayaa hadda lagu kordhiyay. Marka TikTok caawa ma xirmi doono sidii dhacday 19 January oo TikTok uu xirmay 12 saacadoodna hawada uu ka maqnaa, markii dambana uu dib u soo laabtay. haddaba ninkii Trump shalay oo khamiis ahayd waxa uu ku dhawaaqay kaarkii uu ugu magac daray Gold Card. wuxuu yiri waxa uu dhigmaa Green Card oo dadka qofkii iibsanaya kaarkan dahabiga ah waxa uu ku iibsanayaa $5 milyan. markaasi kadib xitaa waxa uu noqon karaa muwaadin Mareykana. marka Trump waa kii ku dhawaaqay bishii hore, laakiin shalay ayuu si rasmi ah u soo dhigay. waa kan isagoo gacanta ku haya $5 milyan ayaa dhinac uga qoran, $5 milyan United States ayaa sidoo kale kor uga qoran, the Trump card ayaa ku qoran, saxiixiisa ayaana ku qoran, weliba sawirkiisa ayaa ka muuqda. marka Trump waxa uu yiri waxaan doonaynaa inaan iibino malaayiin kamid ah kaarkan, qof kastana $5 milyan markuu ku iibsado malaayiin la iibiyo wuxuu lacagta ka soo baxdo deynta Mareykanka lagu leeyahay ayaan isaga gudaynaa, waxyaabo kalena waan ku qabsan karnaa. marka wayna arki doonaa inta kaar oo laga iibsan doono Trump Gold Cardkan uu soo bandhigay isla markaana uu ku dhawaaqay. waxyaabaha kale ee ka soo kordhaya sida loo iibsadana sidoo kale wayna arki doonaa. Trump canshuurta Arbacadii uu ku dhawaaqay shalay iyo maantaba suuqyada caalamiga ah masaamiyada aad ayaa looga dareemayay. waxaa la leeyahay suuqyada saamiyada Mareykanka 2.5 trilyan ayaa khamiistii oo kaliya ay lumiyeen. maantana sidoo kale hoos u dhac weyn ayaa ka jira. Shiinuhu ay ka soo jawaabeen 34% ayay iyaguna Mareykanka alaabta uga imaanaysa ay dul saareen oo taarifa. waxa uu leeyahay marka arrintaasi way ku qaldameen ayuu Trump ku soo qoray bartiisa Truth Socialka, waa ay qalqaleen ayuu leeyahay dalka Shiinuhu. laakiin waxaa la arkay wasiirka maaliyadda oo dhahaya wadamadu waa inaysan ka soo jawaabin oo aysan ka jawaab celin taarifkan aan dul dhignay, haddii kale caqabado kale ayay la kulmi karaan. marka canshuur ayaa ku dul saaraya, adigana ma doonayo inaad ka soo jawaabto. arrintaasi arrin iskeenaysa ma ahan. marka sidaas ayaa sababtay in suuqyada caalamku hoos u dhac weyn laga dareemo. xitaa waxaa la leeyahay burbur dhaqaale miyaa wadanka Mareykanka ku imaan kara. arrimahaasina waan arki doonaa, laakiin maamulka Trump waxa uu leeyahay culeys waa jiri doonaa, laakiin barwaaqo badan ayaa ka dambaysa. arrintaasina sidoo kale wayna arki doonaa. ninkii aan idiin sheegay 2 maalmood ka hor maamulka Trump uu qirtay Isniintii in si qalad ah wadanka El Salvador loogu masaafuriyay, walow isagu wadankaasi uu ka soo jeedo, oo Kilmar Abrego Garcia ahaa ayaa dacwad qareenadiisu ay gudbiyeen. garsoore ayaana waxaana goordhow amar uu ku bixiyey in ninkaasi dowladda Mareykanku ay dib ugu soo celiso Mareykanka. waxay dowladda Mareykanku ay sheegtay ninkaasi hadda xabsigaasi ayuu ku jiraa oo dadkaasi aan geynay M13 iyo weliba Trenta de Aragao oo Venezuela kooxaha gaangiska ka yimid. sidaas darteed ma awoodno inaan dib u soo celino. laakiin Mareykanku lacag ilaa $6 milyan ayuu ku siinaya dowladda El Salvador inay maxaabiistaasi hayso. marka garsooruhu waxa uu yiri suuragal ma ahan, dowladda Mareykanka lagama yeelayo, ma soo celin karno. marka waa inay soo celiyaan. xitaa xaaskiisa Jennifer ayaa maxkamadda ka hor hadashay, waxay tiri waan kuu xiisay, waana ku miskareeyay. sidaas darteed waxay dowladdu leedahay ninkan M13 ayuu ka mid ahaa, sidaas darteed ayaan ku masaafurinay, mana soo celin karno. dadka uu Trump maamulkiisa u isticmaalay Alien Enemy Act 1798 waxaa la leeyahay dad aan dambi lahayn ayaa ku jira oo tattoo jirkooda ku yilay darteed loo masaafuriyay. sidaas darteed dad fara badan ayaa jirkooda tattoo ku qora, dadkan ajaanibta ah. marka qof inaad tiraahdo tattoogaas jirkaada ka muuqdo waxa uu cadaynayaa inaad gaangis tahay, waa ku masaafurinaya. arrintaasi suuragal maaha. marka dhowr qof oo ka mid ah dadkaasi Trump oo El Salvador u masaafuriyay qareenadooda ama familkooda dacwada ay maxkamadaha keeyeen. marka maamulka Trumpna waxay leeyihiin anaga dadkaasi aan masaafurinay dambiilayaal ayaan u aqoonsanahay, Mareykankana dib uguma soo celinayno. marka hadda ninkan oo xaaskiisa ay muwaadin tahay, ilmana halkan ku dhalay, isla markaana la yiri xitaa wadanka uu dhashay looma celin karo, looma masaafurin karo, maadaama ninkaasi isagoo da'yar uu ka soo cararay kooxaha gaangiska ee xilligaasi ka
jiray waddanka El Salvador walow hadda madaxweynaha waddankaasi Nayib Bukele uu xabsi ku guray kooxihii gaangiska oo waddanka hadda ammaan uu yahay haddana dowladda Mareykanka waxay tiri soo ma celin karno laakiin garsoorahan waxa uu leeyahay waa inaad soo celisaan oo weliba Mareykanka lagu soo celiyay ninkaasi xaaskiisa iyo canugiisana loo keeno marka arrintaasina halkay ku dhamaato wayna arki doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo